iyadoo ay guud ahaanba geeska Afrika ay saameysay xaalad adag oo dhinaca abaarta ah iyo weliba jiilaalkii oo daba dheeraaday ayaa dhawaan xukuumadda Somaliland gaar ahaan hay'adda ku shuqul leh ka hortagga aafooyinka dabiiciga ah ayaa waxay u dirtay gobollada iyo degmooyinka dalkani Somaliland kooxo u kurgala xaaladda nololeed ee dadka iyo intay gaadhsiisan tihiin guud ahaan abaaraha ka jirta dalkan Jamhuuriyadda Somaliland waxaana ka mid ah goboladan ay kooxaani xaqiiqo raadska ay tageen gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada madaxdiisa Burco maalmihii ugu dambeeyay kormeer xaqiiqo raadsi ka wadeen iyagoo ugu kuurgaraya heerka abaarta ee ka jirta gobolkan Togdheer waxaanay kooxdani sheegeen in kadib deegaamo badan oo ay soo mareen in loo baahan yahay gurmad dhinacyo badan taabanaya gudidani xaqiiqo raadska ee ku sugan magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco ayaa waxay xuseen inay jirto caafimaad xumo dadka iyo xoolahaba haysata taasoo ay sabab u tahay bay yiraahdeen nadaafad la'aan biyaha ah sidoo kale dhibaatooyinka kooxdani ay sheegeen ayaa waxa ka mid ah xanuuno badan oo xoolaha ku dhaca sida furuqa waxa kale oo ay tilmaameen gudidan xaqiiqo raadiska in shuban carruurta ku dhacay kaasoo sababi kara bay yiraahdeen nafaqo darro ku timaada carruurta yaryar ee soo koraysa ليحة ووقت طريق والله ضلك قوية مرقا وعها صح الله دري إني وربحين كسوق ويان ضلك وردن إن أسمتي ومرقا بسم الله نحن شوين رقانتو بعي ضلك يحولها يتعصينك يبيها بعد مرقا أنا أقول لكم تقدر يعني أبسم نوان كاول قريب مركاي ممكن تجد حويان هنا كوي كنو وعي قديم أنا كنا وشين دائما أقول رسنا واحد من ذا تتوعي جي صارتي عفمات كعدتها حولها فيها تغسين كحولها عفمات حولها دور أنت عاد إنه نورنا هيجيب لنا مثلا أليكس حاجة عفمات خطأ deegaamada waqooyiga ee gobolka Togdheer ayaa ah iyagu deegaamada ugu liita xilligani ee u baahan gurmadka degdega ah roobkii guga oo aan si fiican uga deyn iyo jiilaalkii oo daba dheeraaday ayaa sababay abaartii iyo biyo dhaamis xoogan ayaa waxa ay keentay in deegaamo badan ay saameyso noloshooda mustaqbalka dhow iyadoo kii reer guraaga ah ee deganaa deegaanadaasi miyiga ay dhammaantood u soo xaroodeen magaalooyinka waaweyn ee dalkan Jamhuuriyadda Somaliland ururka qaramada midoobay ee beesha caalamka ayaan iyaduna qaybta ay ku lahayd aan ka qayb qaadan abaaraha dalkan Somaliland ka jira walow xilligani aanay lagama maarmaan ahayn ka qayb qaataan ururka qaramada midoobay ee beesha caalamku ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ah kooxaani u kuurgalaya xaaladda abaareed ee ka socda xukuumadda Somaliland ayaa soo maray deegaamo badan oo ka mid ah gobolka Togdheer ayaa gudidii deegaamada ay soo mareen ayaa waxa ka mid ah Nasiye Waraabeeye Sanyare Kalbarre Dindinta iyo weliba deegaano kale oo aad u tiro badan waxaana ay xilligani gudidan xaqiiqo raadiska ee ka socda xukuumadda Somaliland ay imika ku sugan yihiin gobolka Daadmareer ee Oodweyne si ay halkaas uga sii wadaan hawshooda shaqo si kastaba ahaatee xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada bariga Somaliland ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli gobolada galbeedka Somaliland oo toddobaadyadii u dambeeyayba u mashaqeeyay roob aad u weyn oo ka da'ay goboladaasi Maxamed Ibrahim Xasan Maxamed British shabakada caalamiga ee Togo Herer Burco